لله وإنا راجعون halkan saaka waxaan ugu nimid xildhibaan farxaan oo ciise waxle oo reerkiisa gubtay oo afar qof ay guriga ku joogeen lamana dhimatay isaguna dhaawac u yahay inantiina dhaawac u tahay afartii qof saasay ku gubteen gurigiina uu shuf beelay soo ugu shuf beelay marka waxa weeye waxaan u baryaynaa isaga baan iyo inantay nool baan leenahay ilaahay ha caafiyo inta dhimatayna ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo ilaahay haw dambi dhaaf qof fiican bay ahayd odayga oo raalliyada ayay ahayd ilaahay baan u baryaynaa ilaahay inuu jannadii ilaahay ka waraabiyo xawlka janno ilaahay u furo isagana ilaahay inuu caafiyo haddeer isagii baan soo booqannay dhakhtarkan buu jiifaa waxa weeye iyaro hadal buu leeyahay in sha Allah waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa ilaahay caafiyo caafimaad baan ilaahay weydiinaynaa waxa kale oo jirta bahalaha nimanka gaastan la isticmaalayo waxay u baahan tahay qofka marka laga iibinayo qolyahan iibiya inay dadka tababaraan inay u sheegaan laakiin qof aan weligiiba arag gaas iyo wax kale toona arag marka la isaga dhiibo ee guriga ku xidho waxa weeye waa ku gubanay waa dhibaato ka imanaysa dhibaatadana ayaa ka masuula waxa ka masuula cidii siisay waxna aanu sheegintii waxa weeye wax loo sheego in loo tababaro in sida qaabka wax la iska ilaaliyo loo sheego in sida la isaga ilaaliyo loo sheego in sida loo shidanayo loo sheego dadkiina iminka baahiba u geysado waxa weeye dhuxushii bay goyn kar waayeen inkastoo iyaduba ka jabnayn iyaduba kama jabna waa ka jaban tahay baa laakiin kama jabna marka waxaan leenahay war arinta laga taxadiro ragga dadka ka iibinayaan ka taxadiraan haday ka taxadiri waayaan dhibaatada halka ka timaada iyagu baa dusha laga saaraya waxa weeye inay soo eegaan guriga iyo meesha lagu xidhay inay ku haboon tahay in wax kale inay soo eegaan oo ku haboon tahay inaanay halka ku haboonayn waxa weeye garka u gali maaha garka u gali imika Soomaalidu waxa weeye dhakhtar baan ahay dhaqaaq dhakhtar baa tahay dhaqaaq dabaa sidaas dhaqaaq wax walba waa dhaqaaj marka waxaan leenahay war aad iyo aad loo taxadiro qolada dhaqaatiirta gacanta ku haysana waxaan leenahay ilaahay dil qabtay si aad ugu dadaala ku dadaala salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh